وايه waxaan ka hadlaynaa dadka mas'uuliyiinta Soomaalida qaar badan oo kamid ah oo aan aaminsanin xilkan uu hayo inuu ummadu hayo laakiin wuxuu aaminsan yahay waxaad ku gaari kartaa meel sare iyo maqaam sare iyo sharaf adigoo guuloodeeya oo madaxweynahaaga iyo xukuumaddaada istusa oo marba meel ka hadla oo yiraahdo hadii Ilaahay ku riyahay dawladdu waa sinaysan anagu sinaysan marka guuloodeynta ayaan dib u eegay sax xildhibaanka sanadkan Soomaaliland xildhibaanka ugu guuloodeysan ee bariga Soomaaliland ka yimaada ayaan eegi doonaa Salebaan Koraale Salebaan Koraale wan ajaayib Salebaan markuu arkay in Ali Khaliif Galaar soo socdo ayuu sir meel sii banayso dabeetana shir jiraaydo fara badan ayuu qabanaya xaq uu ku miisaya qolo caayaya wax aad soo shida waxa ku abuuray Ali Khaliif ka soo socda oo yala laga dheeray meeshii laga dheeray marka imka hadii aadan position sii sameeyay oo aanu Sinaayo ku maqal oo aanu Muuse Bixi ku maqal oo hadii ay ku ri Maxamed Xaashi ku maqal inaga la hadli maayo waxaan u duubayo wuxuu la hadlayaa Sinaayo iyo Maxamed Xaashi arrimaha iyo Ali Khaliif ragaas uu tabinay marka waxa la gashay dhawaan waxa shir qabtay baarlamaanka Soomaaliland oo ka hadlayay in heshiiska Soomaaliland iyo ka dhaxeeya Khaatumo in baarlamaanku ay approve gareeyaan in heshiiskaas ay ogol yihiin de heshiis la ogolaada waa wax wanaagsan sax cidii doonaysa heshiis laakiin baarlamaan le war hadaynu la heshiino qolada aynu wada heshiino ka warrama waa wax aad u wanaagsan lama oran karo heshiis ma rabno waaya waxa ku ahaa gudoomiye shirka ninka la yiraahdo baashi oo ah ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliland sax gudoomiye wuu maqlaa markaa wuu ka maqlaa gudoomiye arrinkii baa la isku raacay mar qura wali war arrin wanaagsan waa la proof gareeyay sax hawsha markay dhamaatay Salebaan Koraale hadlay wuxuu ku leeyahay shirkan wuxuu ahaa baarlamaanku mid uu soo sameystay ninka la yiraahdo hadii Ilaahay ku riyahay oo ka dambeeyay baashi oo uu doonay inuu meel marsado in Ali Khaliif iyo Khaatumo la heshiiyo ko tan labaad marka baarlamaanka gudoomiyadu dhoofo ay bushiran qabtaa ya eedaas soo jeediyay marka eedda hadaan dib eegno baarlamaanka Soomaaliland de sharci ku shaqeeya constitution baa meesha sharci baa jira marka gudoomiye ku xigeenka uu shirinayo baarlamaanku isugu yeero hadii aanay ahayn sharci isma yimaadeen sax marka gudoomiyaha maqan hadii gudoomiye ku xigeenka uu shir qabto waa wax dastuurka ogol yahay sax hadii dastuurka ogol yahay ilaa gudoomiyaha joogay inaan shir qaban saas oo socon lahayd xamar marka nimka eeganay wasiiradii la approve gareeyay gudoomiyaha muu joogin magaalada ma joogin marka Salebaan horta markuu warsa waxa wanaagsan inuu sharciga iyo dastuurka Soomaaliland barto qaybo sax haddaad eegatid dastuurka qodobo aad ku dagaalami karto oo tiraahdo number 40 kuwa lagu dagaalamayo ku jira meel ku qoran 71 isna firqadiisa koowaad waad ku dagaalami kartaa oo labadaas la dagaaltid maalin kasta waxa ka maqlaanaysa oo dhibaato kuwii saamaxayay in la heshiiyo ee wanaag la dhaliyo waxa soo balbay imku ugu daraado waxaan daawan doonaa Salebaan oo af qalaadna ku dardaraya waliba oo le Sinaayo la sacado weeyaan madaxweyne meel kasta martay Soomaaliland oo dhan gacanta ku haysa waxa ku dhiman qura in aad dhex gashid buu hadla meesha ku dhiman ma jiraan marka kelmadda intervention ayuu ku sheegay afka Ingiriisiga bal aynu daawano aad baanu nahay annaga oo ka faa'iideysanayna aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta iyo wax wada lahaanshaha ummadda reer Soomaaliland uu u horseeday madaxweynuhu waxaanu isleenna madaxweyne hal degmo oo buuhoodla la yiraahdo yaa maanta u baahan in intervention lagu sameeyo intii kale ee Soomaaliland waa midaysanta Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa reer curad baana ugu filan banaanana ugu filan gacayarayaasha madaxweyne qaarkoodna way kuugu hiiliyaan siyaasadda qaarkoodna waxaa laga yaabaa meel aad rabtay inaad gaadho
inuu ka soo siibto رجال عادي هيد oo وقولوا عادية dabeeto ninka xildhibaankay guudaynaya ها ayaa buuhoodla qaylisay هي 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 waa kan buuhoodla farta uu fiiqay ها wuxuu farta uu fiiqay ها halkaas un baa idin dhimane ها weerar iyo dagaal iyo rabsha la هل هل ها iyo ciidamo ها هل كز saasay u turjinteen ها qodaas ها dabeetana cirka la isla aaday هي markuu hadana qaylo ku dhuftayo Ah. wuxuu ku leeyahay Ah. kelmadda intervention Ah. ayaa ay dhibtay Ah. isdhexgelidii waxbaan u jeeday Ah. infection Ah. maaha military in xoog lagu galo Ah. alla moogta شيخك وكذا ha هي marka haddaad dee shirka jaraa'id badisid ها oo guuludaynta badisid ها marka dambe gacan baa lagu qabanaya sababaa waxaan soo jeedin lahay ها masiirka dadka uu matalayo xildhibaanka u yahay Ha. anigoon lahayn xagga ha raacayo xagga ha raaco ها ha noqdo mid uu ku eegayo karaamada dadkiisa صح inta aanu shirka jaraa'id qabin Ha. ha eego karaamada mas'uulka uu la beesha yahay Ha. ama la gobolka yahay Ha. inaanu is odhan bahdal ها si aad silaanya xog hesho ودباتوي waxa wanaagsan mabda aad aaminsan tahay adigu ها ها inaad maalin walba la soo taagan la soo taagan tahay, laakiin ha. haddaad istiraahid maanta Ha. shaarka cali khaliif gasho ها berina waxaad gashataa shaarka buuhoodle ها ودباتو meel darbaad gelaysaa هي bal isagana intaa ها aynu ku dhaafno Haye. dhinaca guuldaynta هي waxaan xusuustaa axmed maxamed maxamuud siilaan iyo goormaan anugu arkay waxaan arkay maxamuud xaashi oo ay hadda isdhinac fadhiyaan 1991 isaga iyo labada nin oo wada saaran gaadhi karaasiidaha baa waxay noogu yimaadeen lascaanood hadda waa isdhinac fadhiyaan waa markii uu dhintay nin la odhan jiray yaasiin oo ahaa jabhaddii asana maxamuud xaashi markaa meeyarka magaalada burcuuha madaxweynuhuna wuxuu ahaa odaygii dee hoggaaminayey jabhaddii asana wakhtiga badan ilaa maanta ilaa maalintii waanu wada joognay waanu wada shaqaynaynay